waxaan aad iyo aad halkan maanta uga cadeynayaa in xusbiga kulmiye si buuxda si niyad sami ah si siyaasi ah si qarannimo leh uu u ogolaanayo oo ogol yahay natiijadii doorashada bisha 13keedii dalka ka dhacday uu xusbiga kulmiye ogol yahay ansixinayo hambalyeynayo musharaxa madaxweynaha loo doortay iyo xusbiga maxaanku dhahday talada ku guuleystay iyo xusbiyadii kale ee soo baxay iyo kuwii hore iyo ururadii iyo xusbiyadii doorashada ka qayb galay intabana aan ku hambalyeynayno xusbiga kulmiye maadaama uu intaasoo sanadood talada dalka soo hayay maanta ka marin habaabi kari maayo biseelkiisana way ka muuqataa waana xusbi soo gaamuray 14 sanadood dalka soo hogaaminayay ka bayrbayri mayno kana leexan mayno dariiqa iyaga siyaasiga ah ee horena uu caanka u ahaa horaa xusbiga kulmiye la yidhi waa lagaaga badiyey doorashadii hore u aqbalay dabadeedna dib uu soo halgamay mar labaadkii buu ku helay inuu ku guuleysto doorashada qaranka maantana kuwa soo socda rajo weyn baanu ka qabnaa tanna maanta xusbiga ahaanna waan ku soo baxnay doorashadii madaxweynaha iyaga xusbiga ka sharaxnaana iyo xusbiga kulmiyana waanu hambalyeynaynaa hambalyada iyadaasi mid gargaro cashale maaha hambalyada iyadaasi maaha mid hadallo kale meel marinaysa maaha hambalyadaasi waa mid aanu ogol lahay in doorashadan nalagaga guuleystay waa mid aanu ogol lahay oo hambalyeynayno oo bogaadinayno cindii hambalyadan ku gooleysatay qarankan muddaanu soo halgamaynay qarankan muddaanu soo maamulaynay qarankan cid kastaana xaq bay u leedahay inay maamusho cid kastoo xilka timaadana waxa quranu kula talinaynaa waxa weeye annaguna inaanu qaranka ka mid nahay kana shaqaynayno fil mustaqbalka iyagana la shaqaynayno iyagana waxa quranu leenahay waxa weeye qaranka nabadgelyadiisa qarannimadiisa hoggaankiisa iyo maamulkiisa dadaalka ugu badan ee aad gelin kartaan maxaanku dhahday geliya aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafadda qarankana waan u mahadnaqayaa